السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waxaad ku soo dhawaataan qiso aad iyo aad cajiib u ah. fadlan waxaan u sharaftaa subscribe-ta, like-ta, siina share garay. qisadani waxay ka hadlaysaa dhaxalka waxayna ku dhacday laba wiil oo walaalo ah. waxaa jiray nin beeraley ah kaasoo Ilaahay ku arsaaqay laba cunug. waxaana u dhaxaysay labada caruurood 2 sano. wiilka weyn wuxuu ahaa mid wanaagsan wuxuuna ahaa mid ka shaqeeya beeraha haddana barta tacaaliimtii culumta diiniga. wiilka yarna wuxuu ahaa mid dhakhtar ah. way wada guursadeen labadooda waxayna ku wada guursadeen guriga. sanooyin kadib wuxuu ahaa wiilkii beeraleyda ahaa mid aan wax dhalin wuxuuna ahaa mid ka murugsan arrinkaas. wiilkii kale ee asaga ku xigaa wuxuu ahaa mid dhalay 4 ciyaal. goortii oo aabahood dhintay wuxuu aaga tagay dhul iyo hanti aad u fara badan. wiilkii weynaa wuxuu u maaday wiilkii ka yaraa oo dhakhtarka ahaa wuxuuna ku dhahay waxaad dhashay adiga 4 ciyaal waxaan ahay mid aan wax dhalin anigana waxaan ahay mid ka tanaasulaya dhaxalka iyo maalka waxaan ahay mid kugu tanaasulaya adiga sida ugu noolaataan adiga xaaska. waxaan ku sameynayaa maalka iyo dhulka haddii aan haysanin wax caruur ah. wuu ka diiday arrinkii wiilkii dhakhtarka ahaa walaalkiisa. muran kadib waxay noqotay arrintii in uu ku xaliyo in uu ka yeelo arrinta. 2 sano kadib waxaa dhintay wiilkii beeraleyda ahaa. wiilkii wuxuu ahaa mid haayo hantidii uu ka dhaxlay walaalkiisii aabihiisa wuxuuna ahaa mid cadaadiya oo dila xaaskii oo ka dhintay wiilkii beeraleyda ahaa. wuxuuna gudagalay in uu ka eriyo guriga gabadhii waxayna u sheegtay xadiiska nabiga sallallahu alayhi wasallam in allaha la yumli lidaalimi xataa idaa aqadahu lam yuflit. kadib waxay ahayd mid dhul ku dhacda oo mir daboolanto. goortii ay aaday dhakhtaradda waxay u sheegtay in ay tahay mid xaamilo ah iyada. waxay ku fikirtay gabadhii howlaha guriga iyo habeentiisa iyo ka taxadaridda cunugan dhala rabo hadda. wuxuuna ahaa mid leysiiya dhakhtaradda wuxuuna kula heshiiyey in ay disho cunuga dhalan rabo. waqtigii kadib waxay gudagashay dhakhtaraddii si ay u dili lahayd cunugan hadda dhashay. waxayna u sheegtay hooyadiisa inay cunugeeda dhintay. hooyadii waxay ahayd mid murugootay in badan oo haddana niyad jabta. waxayna aaday dhakhtarkii ilaa uu wiilkeeda ka dhinto. dhakhtarkii wuxuu aaga sheekeeyey arrinkii sirta ah ee ahaa dhimashada wiilkeeda. waxaana isla markii meesha soo gaaray booliis waxayna u sheegtay arrinkii dilka ahaa. gabadhii waa la xirxiray waxayna qiratay dilkii ay u geysatay cunugii. waxayna booliiska u sheegtay inuu arrinkan ka dambeeyo cunuga adeerkiisa. wiilkii adeerkiisa kaas oo ahaa dhakhtarkii wuxuuna ahaa mid dhuumanaya booliiska wuxuuna ahaa mid ka taga deegaanka oona aada deegaan kale. isla markii waxaa soo baxay asigii iyo xaaskiisii carruurtiisa waxayna ku soo baxeen gaari raaxa ah. waxayna meesha kula kulmeen shil gaari kaas oo ahaa bas. waxaana meesha ku geeriyooday asigii qoyskiisa oo dhan. arrinkii dhaxalka iyo hantida waxaa la wareegay ninkii beeraleyga ahaa wiilkiisa kaas oo ahaa mid injineer ah wuxuuna ahaa baari. qul illaahumma maalikal mulki tu'til mulka man tashaa'u wa tanzi'ul mulka mimman tashaa'u وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.